مديرة هذا سان مقلي لبوا إن مر لين رأي قبضتي مت كمدي حالي حافظ أنا قبل نفتي أن كنا الله كذا عدي ولو أنا أنكر استاجن ودول استاجن لكن ذاتك تجين أردت وإيه حقيقيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي باب مادس كله مقعيق وأحمد شيخ عبد الليبان وكم قاعد أحمد ترجي كان مدة وذياش ريم مديرة وحاليا هي قلبتها هل كان أنكو دوبها أرين حوجها بريهان كجرتا دولك كجرتا أما بكينيا أهان كسب بلاوتي مقالة بمباسا هذا ما يشان مقالة أنجونا مديرة هي بمباسين تود حيث حوجها لو شيء هاي إنا جرتي إن كلنا واحد جر كل إله بقرن كرا أرين تسان ربع واحد إنا كيراه سانكم مغلينا أما الميديا كلا سعني بمباسا فأرنتها لقد واجي إن ومقرنيسا حنون dadka ku soo boodaayo oo dadka cabsi gili inuu ka bilowday magaalada Bombasa magaalada aan joognana Mandheera waaya Mandheerana arintaas inay maartay laga helay oo dad noocaas laga helay baa la sheegaya waxaan leeyahay marka dadka yaana la khalkhal gelinin kulli arinta horta waxay u badan tahay xanuun waa la sheegay oo qofka maqarnaysa aaladahan telefoonka sidii maqarnaysa message iyo koolkaba waa lagu sheegayaa in dadka qofka isbedel ku dhacaya xanuun ajiro qofka magaraysa qarqar iyo xanuun uu ku bilaabanayo dadka qaarna ay leeyihiin ximeenta taranka ata way dhumaysaa leeyahay arintaas marka waxaan leenahay inteeda badan waxaan filaa in buunbuunis laga badi xanuunka waa sax waa jira laakiin ximeenta taranka waa dhumay waxaas inay buunbuunintaan filaa waxaan leeyahay marka yaan arintan aad loo sii buunbuuninin si ay dadka ay maaragtay khalkhal ku galin telefoonada aan loo qaban waynin aan telefoonada looga cararinin yaan saayid loo sii buunbuuninin waxaan waxa laga yaabaa inay yihiin hadee waxa weeyaan sixir iyo dhibaatooyin kale inay yihiin baa laga yaabaa wixii waxaan ka dambeeyana waxaan leenahay oo ummadda maaragtay fidna u horseedana waxaan leenahay ayaga ilaahay ku celiya haday wax bini'aadan ku shaqale ay yihiin waxaan leenahay waxaan aalada waaya aaladan wax walba ka suurtagalayeen waa laga heli karaa maraha qaar waxa weey dad qafku ay ku qaraxda aalada waxa weey qarax dad ay ku sameeyay waa la arkay haddana waxa la dhihayaa aaladii noocan ay isu bedeshay waxaan awloob naqaanay ma ahayn waxaan u cusbay ahaayeen wax cusubna waxa weey wax walba laga fishaa laakiin waxaan leenahay intii horta laga xaqiijinaa oo waxaan runta loogu ogaanayo aan maaragtay dadka la khalkhal gelinin dadkii aan la cabsiinin Mandheera hadda saan maqlay laba nimo dhalinyaro ay qabsatay mid kamid xalay xaafad aniga naftayda aan ku noolahay ka dhacday walow aan kor istaagin oo dul istaagin laakiin dadkii tageen arintaas way xaqiijiyeen ninkii inuu xanuunsaday qarqaray tabcaan noqday baa lii sheegay laakiin dadkii u dhawaaday oo hoos ahaan u sii weydii ximeenta taranka way tagaysaa warkaas in fududiyaan fila waxaan leeyahay marka waxa weeyaan oo reer Mandheera iyo reer Kenya iyo ummadda muslimka oo dhan aan u sheegayaa dadkii yaan la khalkhal gelinin waxaan hal hubsada hadii wax dhib keenaya haday yihiin ilaahay baan ka baryaynaa inuu ilaahay shidado naga dhinac naga mariyo hadii kolba wax yihiin in wax sixir iyo fidna kale loo ladan leh oo dadka dambeeyaan inay taa laga yaabaa waxaan leenahay waxaasna ayaga Allah ku celiyo muslimka ilaahay dhinac ka mariyo waxa baaqay ugu dambeeyay dira waxa weeyaan dadka waliba khaasatan dadka aaladaha inta badan ku jira ummadda waxa weeyaan hadda adduunka waxa iska noqday maqal iyo muuqaal adduunka ninkii Mareykan joogay ninka Mandheera joogay meel ba isla joogan muuqaalada waxaan leeyahay waliba dhalinyarada social media ku jirtay dadkii aan la cabsi gelinin oo ma garanaysaa aan la khalkhal gelinin